shirkadda dhismaha ee kulmiye ayaa sheegtay inay dhamaystirtay dhismihii wadada wadnaha iyadoo ay meel wanaagsan marayso soo gabagabayntii wadadaas. Ismaaciil Xaaji Cabdalla ayaa umuurtaas eegaya. wadada wadnaha ee gobolka Banaadir ayaa maanta waxaa la soo gabagabeeyay dhismo in muddo ah ka socday halkaasi iyadoona dhismaha ay gacanta ay ku haysay shirkadda Kulmiye General Trading Company. Dhismaha wadada wadnaha waxaa iska kaashaday maamulka gobolka iyo ganacsatada ku dhaqan gobolka Banaadir. Gudoomiyaha shirkadda Kulmiye General Trading Company Abduqaadir Abuukar Cumar Cadaan oo la hadlay TV-ga Kalsan ayaa waxa uu sheegay in dhismaha wadada wadnaha maanta uu ku eg yahay waxuna ka sheekeeyay intii ay socotay dhismaha wadadani caqabadihii kala duwanaa ee soo maray. waxaa ilaahay mahadiis ah maanta oo joogna taariikhdu ay tahay 27 bisha August waxaa si nabadgelyo ah nagu soo gabagabowday qaybta ugu horeysay dhismaha wadada wadnaha ee 5 kiiloomitir ah ee ka soo bilaabatay isgoyska Tarabuun ee degmada Hodan kuna ekeed isgoyska Sanca ee degmada Kaaraan iyo Yakshiid meesha iskaga xirmaan 5 kiiloomitir ee had ilaaha noo fududay Allah ku mahadsan insha Allah taala taas waa wajiga koobaad ee dhismaha wadada. intaas kadib waxaa ku xigi doona in aan bilowno qaybtii labaad ee ka bilaabanayso isgoyska Sanca ee kuna eg degmada Kaaraan iyo kiiloomitir kale Tarabuunka asagana ka bilaabanaya kuna eg jaamacadda Jamhuuriya ee wadada gasha Digfeer. intaas ayay ku eg tahay marka la isku geeyo waa 7 kiiloomitir oo labada dhinac markii la isku darana naqanaysa 14 kiiloomitir ayaa sidaas ku gabagabay mashruucan wuxuu bilowday 1 bisha 6 ee sanadkan warshu wuxuu ahaa inuu ku soo gabagaboobo 3 bisha November ee 2016 sanadkan ilaahay maadiis qorshihi la qabtay waxaad moodaa inaan ka hormarayno ilaaha noo fuday Allah ku mahadsan. dhinaca kale gudoomiyaha degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu baaq u diray shirkadaha korontada ee ka howlgala gobolka Banaadir inay ka fujiyaan tabeelooyinka burbursan hareeraha wadada. baaq u jeediyo dadka baalayaasha kula wadada bartamadeed oo baalayaasha hore baabay inay la baxaan fiilooyinka gees ee wadada gees ay ka marayaan si bilicda wadada si guud ahaan si iftiin u soo baxdo bilicda dib u soo baxdo. horta wadada badanaa waxaa saaran dadka badanaa businesska badanaa beelada xirnaa baqaarada badan business kale ku yariin guryaha yar noocyada oo kale mooyane inta kale away boqolkiiba 70 waa baqaar weyn noocaas badin taasoo u maraxyadana insha Allah inay shaqadooda si fiican u liibi jibaaran ayagana ka qayb qaataan bilicda iyo guud ahaanteed bilicda qayb qaataano guryaha nadaafadda ay ku diyaaraan. ugu dambeyntii shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho khaasatan kuwa ka agdhow wadada wadnaha ayaa waxay soo dhaweeyeen dhismaha wadada wadnaha waxayna sheegeen in ay ilaashan doonaan. Allah ma sha Allah waxaan u arkaa si qurxan waxaan ku leeyahay dadkii soo abaabulay hawshan aad baan ugu hambalyeeyna haddana hooyooyinka Soomaaliyeed aad iyo Warta Nabadda waxaan ku leeyahay annagana waxaan ku leeyahay garabkoodan taagana jidkan waa dadkii waa burbursanaa haddana waa aragtay ilaa iyo Tarabuun ilaa iyo Sanca waa jidkaas liishaha oo saas baabuurta ugu socota alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan leenahay magaciisa Allah raajiyo haddana ururka haweenka ee gobolka Banaadir waxaan leenahay hambalyo. Ismaaciil Xaaji Cabdalla Kalsan TV Muqdisho.